bilaabno doona xafladeena oo madal ay lagu tala galnay inay jaamacadda Hargeysa ku soo dhaweyso professorkeena qaaliga Axmed Ismaaciil Samakad taas waxay tilmaamaysaa professorkeena inuu soo dhaweynayno oo waddankiisa in badan ka maqnaa oonu leenahay ku soo dhawow jaamacadda Hargeysa iyo waddanka Jamhuuriyadda Soomaaliya. waxaan ka yar hortacayaa su'aalo badan dad badan baa laga yaabaa inay markii uu professorku soo socday iyo intii la fadhiisanayay baryaha bay isweydiinayeen professorka maxaad weydiisaa su-aasheed bilowda waxaan filayaa su-aalo badan waxaa hakin doona calanka u taagan madasheena waxaan ku bilaaban doonaa aayado qur-aan ah oo bisha ahaan hadda waxaan ku bilaaban doonaa xafladeenu iyo siday u socon lahayd waxaan ku soo dhaweynayaa cabdiraxmaan nuux aadan inuu inoo akriyo aayado qur-aan oo waxa lagu bilowdo ka ugu qaybka badan kadibna xafladeena inuu geli doono أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم آيات القرآن آيات الأخير سورة الأخير ولكن ورهان في معنوي كفر لذا إلى كعب المريم وحين هذا وقل دونا برنامج كينا يوجد يجلسنا وسكن دونا وحين مرة كل بلاد دونا سولويتا دنيا جامعة هالجيش سولوين دونا بروفيسور كا يمر بشرف كلا هذا السويد وحين هذا الدين دونا مدرسة أي مسؤول من الأصول الدياجرونية اللي بيسنو بروفيسور كمر كذا ينوع هو ذكي في قصة مقضي كتب وحين يقول بدونا سؤال الله يستطيع وايو حب رئيسي يوضع قرن إنه مرة أيام مرة رئيسا كذب جامعة هالجيش وحمل الله قالنا إن مرة ما حب وضع قرن مرة له سؤاله الوجيد كل واحد فينا يا بروفيسور زياد هو هاوي لسؤاله خلص روح لكن أنا كقصد واحد الله يستطيع حلو بلعبه سببته تدبعي يملسوا بينا تاسع نقضلوسا legal issue la isweydiin doono oo ardayda loo way wax ka weydiin doonto waxa ka mid noqon doona su'aalo kale oo xagga dhaqaalaha ay ku weydiin doonaan arday fara badan iyo arrin tacan ku leh academic life iyo nolosha qurbadu sida ay tahay taalo dambe ku dhigan doona waxa kaloo ay professor ka siin doonaan chance ku dhageysto scholarska jaamacadda Hargeysa mid kamid ah oo runaantii daraasad badan lagu sameeyay hanaanka